xuska cashuura qiimo weyn ayuu ugu fadhiyaa shiicada Ciraaq iyo dalal kale. sanad walba waxay ku xusaan dilka Imaam Xuseen ibnu Cali meel u dhow Karbala. haddaba shiicada maxay sameeyaan? kaga bogo muuqaalkan. taariikhyahanada qaar waxay sheegaan in Xuseen ibnu Cali ibnu Abi Taalib oo ay wehliyaan dhowr qof oo qoyskiisa ah iyo asxaabtiisa in ay ka baxeen Xijaas oo ay aadeen Kuufa si ay ula wareegaan khilaafada kadib markii ay casuumad ka heleen reer Ciraaq. Yazid ibnu Mucaawiye ayaa la wareegay khilaafada kadib geerida aabihii Mucaawiye ibnu Abi Sufyaan. si kasta ha ahaatee gudoomiyihii Yazid ee Basra iyo Kuufa ayaa u diray ciidamo ka hortaga Xuseen, waxayna ku qasbeen in ay u sii gudbaan dhinaca Karbala. halkaas ayaa lagu hareereeyay loona diiday in ay u sii gudbaan webiga Furaat. kadibna waxaa lagu dilay dagaal halkaas ka dhacay. haweenka iyo carruurta waa la qabsaday, waxaana ku jiray dadkaas walaashiis Zaynab iyo wiilkiisa Cali Zayn al-Caabidiin oo ah imaamka afaraad ee shiicada. kadib dilkii Xuseen iyo asxaabtiisa iyo qafaalashadii qoyskiisa, waxay keeneen isbeddel weyn oo ku yimaada habdhaqanka shiicada. dilka imaamkii 12aad ee shiicada waxay ka dhigan tahay isbeddel weyn oo taariikhi ah, kaas oo sanad walba la xuso si loo muujiyo ahmiyadda iyo macnaha ay leedahay. xuska iyo casharada dhacdadaas waxay ka gudubtay caqiido diimeed iyadoo la ballaariyay lana gaarsiiyey arrimaha bulshada iyo siyaasadda, waxayna u taagan tahay cadaalad. xuska munaasabadan oo bilaabata 1 bisha Muxaram waxayna socotaa ilaa 10 bisha, kuma eka oo keliya shiicada ku nool dalka Ciraaq, waxaana sidoo kale laga xusaa meelaha kale ee adduunka ee shiicadu joogto. dhaqanka iyo caqiidada 10 maalmood ee ugu horeeya bisha Muxaram waxaa la qabtaa kulamo iyo munaasabado lagu xusayo dhacdadaas iyo in la muujiyo dareen murugo leh oo xabadka la garaacanayo. midabka madow waa kan baroordiiqda, si weyn ayaa loo xirtaa midabkaas iyo astaamo lagu muujinayo Xuseen. munaasabadaha iyo isku soo baxyada oo ay wehliyaan cunto loo qaybinayo dadka u baahan ayaa ka mid ah falalka wanaagsan uguna muhiimsan ee shiicada samayso. waxay aaminsan yihiin dilka Xuseen in uu door weyn ka qaatay xoojinta iyo sii wadida caqiidada, maadaama ay waxaasi oo dhan u taagan yihiin in lagu dhaganaado mabaadida iyo baahida loo qabo cadaaladda. meelaha qaar habka uu xuska u dhaco waxaa ka mid ah bandhigyo lagu samaynayo meel bannaan oo lagu xusayo dhacdadii Karbala iyadoo la samaynayo habjiliin ah, waxaana soo booqdo dad badan oo daawadayaal ah. xuska geerida Xuseen si weyn ayaa looga dareemaa magaalada Karbala. gobollo badan oo Ciraaq iyo dibadda ayaana looga yimaadaa. meelaha kale ee shiicadu ku badan tahay waa laga xusaa dhacdadaas. intii uu jiray xukunkii madaxweyne Saddam Xuseen, mas-uuliyiinta Ciraaq waxay qaadeen tallaabooyin lagu xadidayo xusaska ay sameeyaan shiicada, kuwaas oo ah dadka ugu badan dalka. xayiraadahaas ma ahan kuwii ugu horreeyey oo noocaas ah oo taariikhda la arko. xayiraado caynkaas oo kale ayay hore ula kulmeen shiicada oo la xiriira munaasabadaha iyo xusaska u gaarka ah. taariikhyahanada waxay sheegeen in xuska cashuura laga mamnuucay magaalooyinka intii uu jiray xukunkii mamaaligta ee Ciraaq, balse waxaa dib loo bilaabay markii ay yimaadeen Cusmaaniyiinta, markaas oo Istanbul ay la saxiixatay Iran heshiis nabadeed kadib xukunkii mamaaligta. waxaa jiray iskudayo kale oo lagu xakameynayo oo ka dhacay Ciraaq. arrimo siyaasadeed ayaa ah sababaha keenay in madaxda qaadaan tallaabooyin lagu xakameynayo isu soo baxyada iyo in laga hortago in ay noqdaan hab siyaasadeed oo cadaadis keena. isu soo baxyadan ayaa ahaa fursado lagu muujinayo diidmada iyo kacdoonada beelaha iyo gobollada. sanadkii 2003 markii la riday xukunkii Saddam Xuseen, kadibna ay dalka soo galeen ciidamadii Maraykanka iyo isbahaysigiisa, waxay taas bedeshay nidaamkii siyaasadeed ee halkaas ka jiray. shiicada waxay dowladda ka heleen qayb weyn, waxaana meesha ka baxday siyaasadii hore ee ka dhigaysay in la riixo, taas oo sunnida horkacaysay. kadib doorashadii baarlamaanka Ciraaq, xisbiyada shiicada ayaa ku batay dowladda iyadoo sunnida iyo kurdiyiinta ay qayb ka yihiin, taas oo ah nidaam la sameeyey kadib markii dalka ciidamada shisheeye qabsadeen. ilaa markaa kadib,
xuska Cashuura iyo munaasabadaha kale ee diimaha si xor ah ayaa loo sameynayay, mararka qaarna maba jirin wax xayiraado ah.